الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة waxaan joognaa waqtiyo iyadoo waqtigan laga wada faa'iideysto ay ahayd fursadahana inaan la dayicin ay ahayd waxaynu ku jiraa xilli fasaxyo badan la galay kuwa ka badanna fooda inagu soo hayaan ubadkaniya in badanoo ilmaha ahayd arday wax dhiganaysay iyo iskuulla furnaa iyo maamul iyo macallimiinka la hayay yaa maanta guryaha wada fadhiya ardaydii guryahay joogaan maamuladii guryahay joogaan macallimiintiina guryahay joogaan sax waalidku gaar ahaan hooyooyinkii waqti firaaqo ay heli jireen bay hadda waayeen oo carruurtu markay iskuul iyo dugsi meel ka wada aadaan waxoogay waqti u soo bixi jiray guryaha la wada jooga fasaxyihii sanadka dabayaaqadiisa oo la wada fadhiyana waa inugu aad fadhigu badan doonaan waa inugu soo socdaan oo shaqaale iyo xafiisyo badan la fasixi doono nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagala dardaarmay labo inaynaan dayicin wakhtigaad firaaqada leedahay inaadan dayicin intaad caafimaad qabta ee jirkaagu xoogga leeyahayna aadan dayicin wuxuu yidhi laba ilaahay aadamaha ku mannaystay gallad iyo nicmo weynna ku ah wax badanna ay uga faa'iidaysan karaan dadka intiisa badan way ku khasaareen kama faa'iidaystaan way ku khasaaraan midi waa caafimaadka jirkoodu uu qabo qof indhihiisii caafimaad qabaan oo araggiisu fayow yahay xubnihiisii iyo jirkiisii xoog leeyihiinoo caafimaad qabaan oan uga faa'iidaynin wax adduun anfaca iyo wax aakhara wax taratoona iyo qof wakhtigiisii firaaqo badan haya oon wax aakhara wax tara iyo wax adduun wax tara midna aan uga faa'iidaysanaynin sidaasay dadku u badan yihiin wuu soo toosa 24 saac markuu qayb ka mida seexdo ilaa uu wakhtiga kala seexdo wax badan oo adduun wax tarana ma qabsado wax wana oo fiican oo aakhara wax tarana ma qabsado dadka lala hadlaya waa un aniga iyo adiga cid kale maaha markaan isweydiina dhammaanteen saaka waad soo toostay hadda waxaan joognaa 7 saac salaaddii subax 8 saacadood baa ka soo wareegtay wakhtigaynu tukannay 5 iyo waxoogay baan tukannay haddiiba xataa 6 aan gaadhsiino 7 saac baa ka soo wareegtay 7 saac maxaad aakhara qabsatay maxaa adduunku anfacayood qabsatay wakhtigaagiisa imisaadan garanaynin wuxuu ku baxay waad soo baxday telefoon baad ka hadday maantoo dhan baad gedgediday 1 saac 2 saac baad ku jirtay waad laabtay oo waad isku laabtay aakhariyo adduun intaad eegaysid maxaad faa'iido ka haysaa maxaa adduunkaagii ku anfacayo waqti 3 saacadood ku luntay maxaase aakharaadii ku anfacaya telefoonkani wax adduunkaagii ku anfacaya ma ka baaraysay raxim intaad la hadashay ma xiriirisay qof wax u baahan nacfi intaad la hadashay ma anfacday qof su-aal diina u baahnaa ama adduunyo ah ma anfacdo ma uga jawaabtay aduu ma ku kororsatay wax ma ka akhriday aakhriyo adduunkaagii ku anfacaya mise wax dembi ihaba markaad ugu fududdahay waxaan dhibi laqwi ahoo faa'iide aan lahayn baad ku mashquulsanayd hadduusan dembiba ahayn amaad waxun daawatay amaad waxun qortay amay dhagahaagu wax macsiyo dembiya dhegaysanayeen indhahaaguna waxun daawanayeen haddayna labadaa midna ahayn soo laqwi iyo maalaayacni wakhtigaagii kuma lumin wakhtigaagii maanta fasax baad ahayd jumcay ahayd dugsi maadan aadin shaqanaydaan u kallihin baa laga yaabaa maxaad faa'iidaysatay intaan weeye maalin walba wareeggaan weeye 7 saac hadday tagtay 7 soo socota maxaad qaban doontaa jumcada waad ka baxday bannaankaad istaagtay gidaarada ma sheekaysay wax khayr lama qabatay wax ku anfacaya ma samaysay adduunyadaadii wax ku anfacaya ma ka shaqaysay qofku inta wakhtigiisu qiimo la leeyahay buu wax ka taransadaayo ka tara noloshaadu ma og tahay
inay saacado iyo maalmo la isku daray tahay waa saacado kadib maalmo isu bedelay kadib toddobaadyo noqday kadib bilo noqday kadibna sanado noqday markaad dhalatay durbo waa ka dhabarkuna soo goday indhuhuna waa daciifeen luguhuna waa tabargabeen kadibna guriga iyo sariir fadhi baad noqotay haddayba geeri iyo malakumood ku daayana mayd sariir saaran baad noqon intuba marka la isku daro waa maalmo usbuucyo bilo iyo sanado la isku dardaray wey waqtiguba soo intaa maaha hadda waa yeeshay markaad xoogga badnayd maxaad soo qabsatay aakhiradaada iyo adduunka ay ku anfacayay waqti intee lag baad bixisay saa darteed waxaa soo nicmataani maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaas laba nicmo weynan ay wen yihiin baa sidan gaarkaa loogu xusay caafimaadkuna waa qaaliyo markaad weydaad garan laakiin waa nicmo aan la xasuusan haddii 30kii bisha aan ku jirna hadda keliya 29 habeen aad si fiican u seexato saacadaha qayb ka mida habeenay hurdadu cajcajis iyo xanuun kaaga meermeerto intee nicmada ahayd sheegi mayside xalay waan seexan waayey saacad baa xanuuni qabtay baad ka sheekayn xanuunka aad seexan weyday ku xasuusan maysid 30kaad seexanaysay nicmadii ilaahay ku siinayey ma ku shukriday si fiicanna ma u isticmaashay haddii caawa intay waxoogay xanuunsato naqaska iyo neefi kugu dhegto isbitaalka lagula cararo oksijiiniya waxaad ku neefsata lagugu xiro dhakhtarku intuu kula tacaalo irbadi iyo dawi iyo wax kugu rakibo neeftu kaa soo baxdo lacag kastana waad bixin oo laguu sheegayo boqolaal kun iyo malaayiin alxamdu lilaahina waad nafisi dhakhtarkiina waad u mahad celin laakiin 60 sano rabbigii hawadaa bilaash kugu siinayey ma ku shukriday mase aqoonsatay abaalka iyo nicmadiisa maya waxaad un ka sheekayn intaad nicmo hawo bilaash hesho oo lacag la'aana oodan dhib dareemaynin oo 10 sana ka soo wareegtay intaa xasuusan mayside dhakhtarkiina waad sheegsheegiyo waad ammaani lacagtii kaaga baxdayna waad sheegsheegi tii bilaashka nicamka caafimaadka ahaydna meesha maba taallaba bal u fiirsadoo cimrigeenna waxaan ka xasuusannaa intaan xanuunsannay intaad xanuunsatay baad cimrigaaga xasuusataa laakiin intaa caafimaadsaneyd ma xasuusatid cimrigaaga markay xoolo kastoo tabcaday naftu halis gashoo la yidhaahdo hanti bay u baahan tahayna taniyo hantidaadoo dhan waad soo xaraashi sabab caafimaad inaad hesho qiimaha halkay kaa joogto hantidoo dhanna waad xaraashi ilmahaad dhashay in kelli lagaaga bixiyana diyaar baad u tahay oo waad ku baryi inuu baari yahay waxaad ka ogaan keliyihiibaa eberku noqdaye inuu mid kuu bixiyo laakiin 60 sano rabbigii 2 keliyoodoo bilaashoo caafimaad qaba ku siiyey nicmadaa u xasuusan maysid oo ku shukrin maysid intee baan caafimaad qabnay intee baan nabad ku cawabarinay maxaan se cibaado ilaahay geysannay intee baan khayr uga faa'iidaysannay qof kastoo inaga midoo xasuustaay inaan gaabinoon gabood fallay maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaasi nahay baad garan wax tegay tiig ma leh inta dambe ma taba qabannaa caanadaate waa la daba qabtaaye inta dambe aynu daba qabanno maalin kasta ood xanuunsato bal isbitaalka tag adoo xanuunsanoo isla yaabanoo leh wax naf baa ku hays isbitaalka markaad degto 100 kaa daran baad ugu tegi markaasaad dhakhtarkii si aad xanuun ugu sheegataba garan waaye maxaad sheegataa 100 kaa daran baa safka fadhidoo halkan taalla kuwa neefta aduwaaba socotaaye kuwa oksijiin ku rakiban yahay kuway calooshu bannaanka taallaa kuwa labadii indhoodba geb yihiin kuwa saxaradii laga qaadayaa mararka qaarkood waxaad isdhihi intan ilaahay caafimaadkan ku siiyey ummaddan waxaan haysta ilaahay ku shukriyo iska noqo laakiin wax ka fiicanun baad raadin haddii aad eegtoon inta kaa caafimaad badanee didaysa inta caafimaadka aad haysato hadda ilaahay ugu shukrin maysid haddaa adigu intaa iska fadhiisatood kici weydo aad tasbiixsan karto inbaa kooma ku jirtoon tasbiixsan karin berri markaad kooma gasho ama carabka uu nabar kaa gaadho baa inaad caafimaad qabtoo tasbiixsan karta aad xasuusan caafimaadka iyo sixadu marba in bay joogtaa in kasta ood haysatabana waa nicmo ilaahay ood wax badan qabsan karto adduunka haddaadan markaa qaban karinna aakharadii wax qabsan kartaa jira walidaalika qofka muslimkii waqtiga noloshu daqiiqada iyo sakanadu qiimay la leeyihiin maxay ula leeyihiin haddiiba dunidan aan tegayo 1 daqiiqa haddii la isiiyo
oo boqol teer tasbiixsado ajir weyn oo bayna samaa'i wal ardi buuxiya oo aakhira zaad in noqdan la tagaya sadarteed daqiiqad kastaay aniga raasamaal iyo tabac weyn baan tabcan karaa ma tabcana waqtiga firaaqadan hayno in telefoon baad ku jirtaa in TV baad daawanaysaa in fadhi ku dirir baad fadhidaa in jirdiinka taagan tahay in waxaad ku jirtaa website-aad akhriyaysaa maalintii imisaad quraan akhriday juska dhib ku ah juska imisaad lagu akhriyaa 10 daqiiqo telefoonka fadhi ku dirir imisuu ku jiraa 10 saacadood 10 saacadood markuu sii seexanayana bustaahu huwanay hoostiisu ka sayfeeriyaa habeenkii markuu isgadiyana intuusan mar labaad seexan uu shiraayo uu feeriyaa laakiin ihtimaamkaad garanaysaane marka laga hadlayo nabiga calaysay salaam qofkii manta habeenkii isgadiya oo adkaarta qaarkood akhriya naar baa laga xoreyn baa leeyahay waxa laga inaad tiraado qof hurdo isgadiya sabu istighfaar u xasuusan oo sabu telefoon ku xasuustay himmadii iyo qalbigaaga uu ku weynaa telefoonkaad ku xasuusatay hastay istighfaartu ku weyntahay waad xasuusan istighfaartana wixii kugu weyn waad xasuusataa soomada arag haddii qof xanuunsan iyo ilmo xanuunsan arag jiifto markaa isrogto waad fiirin qandhadiisaa taaban sababtoo ah hami buu kugu hayay markaad seexanaysay inaad ka warqabto ninkay salaad iyo dikri iyo quraan iyo tasbiix iyo istighfaar hami weyn ku hayaan habeenkii markuu isrogo astaghfirullah subhanallah inuu yiraahday wuu xasuusan laakiin haddaynan wax weyn kugu haynin dee xasuusan maysid intaa nolosheenna ka mid aadna ku garan war waqtigii buu nabigu leeyahay ka faa'iidaysta mar kale waa kii nabigu lahaa 5 ku qaban doonta 5ta kale uga faa'iidayso caafimaadkaaga ka faa'iidaysa intaadan xanuunsan firaaqada markaa tahayna ka faa'iidaysa intaadan mashquulin aqoon uga faa'iidaysa waxbarasho uga faa'iidaysa maxaan qabtaa buu ku leeyahay dhalinyarada wuxuu leeyahay maxaan qabtaa oo adduunka imisaa kuu taalla aakhiras imisaa kuu taalla noloshan mawjadaha ee mashaakilka badan ee hadda fooda saartay soo zaadiya sahay aqoona zaadiya sahay alla ka cabsiya zaadiya sahay khibrad iyo waxbarasho soo kaagama baahna mawjadaha nolosheed galayso ee intii horena wada burburisay intii muddo ku soo jirtay kuwa yeeshay jirkoodii mawjadahan say madbawadu u dhacaysay doon alwaax u fuqday bay wada noqdeen anna taun baa alwaax iyo cadcad ku kala fiiqi doonta khibrad baad u baahan tahay aqoon baad u baahan tahay ilmaheennii fasaxyay ku jiraan macallin haddaad ahayd mashquulsan maanta fasax baad tahay arday haddaad ahayd iskuul subax kala haya hadda waad joogtaa aakhari adduun maxaad kasbatay waqtigaagii khayr ma gelisay fasaxyaa lagu wada jiraa jumciya khamiis baa qaar fasax yihiin jumciya khamiis xageed gelisay ciyaar iyo maalayacni iyo xan iyo dambi baan wada gelinaa bal makhaayadaha casarkii tag meel la kala fadhiista ma laha bal dhegedhege maxaa lagu mashquulsan yahay badankood dambi baa lagu jiraa mayse aakhara sugaysa meydka marka la aasayo baa dembigii lagu sii jiraa kii aan hadda ku tukanayna kuma waana qaadanno war ilaahaynu ka cabsanno war waqtigaan ka faa'iidaysanno war intaan caafimaad qabno een xoogga leenahay aakhara aan wax geysanno adduunkeennu ummadda iyo aadamaha ilaahay wax taraya aan ka shaqayno iyagana adduunkana nacfi buu noqon aakharana ajir iyo thawaab buu noqon waqtiga aan dhuminaynana aan ka dayno inaad u timaado qof oo ku yimaado ama ku yimaado oo ku yidhaha warniyow kale waqtigaan isku soo dhaafinna banooni baan aadaynaa waqti isku soo dhaafinno barnaamij aan daawanna waqti aan isku dhaafinno makhaayadda aan fadhi ku diri fadhiisanna muxuu ka hadlayaa keliya aan waqtiga isdhaafinno waqtigii baa culays noqday wuxuu noqday dhib la isdhaafinayo isaga laftiisaa mushkilad in la isdhaafiyo iyo balaayo in laga takhalluso u baahan noqday walaa maxay ka dhigan tahay salaadii cibaadadiina culayska aan iska ridno ku leeyahay salaada culayskeedana aan iska ridno waqtigana aan isdhaafinno waa cod dhib aad isdhaafinayso ma ahayn sida saxda waxay ahayd noloshaaduba joogitaanka dunida waa waqtigaasoo la isku dardaray oo yaryarka ah intaa la isku dardaray baa cimriga aad joogta noqotay war waqtigeena aynu cibaado gelinno aynu tasbiix gelinno aynu cilmi iyo waxbarasho gelinno aynu wax addoommada anfaca gelinno intaa haddaan gelin weyno waxa dembiga ah iyo waxa addoommada ilaahay dhibaya aynu ka dayno oo intaa cidla iska aad haddaad waqtigaagii wax khayrood gelisa weydo gurigaaga ku ekow meel dur cidla iska aad
intaad dad dhibi lahayd oo dembaabi lahayd ama dad aad wakhtigoodii dhaafin lahayd ood ka mashquulin lahayd keligaa meel cidlaa iska tag oo dhibkaaga inaad aadamaha kala fogaato sadaqatun buu nabigu ku tir sal intaa sadqa ka dhigo ilahay khayrka hayna waafajiyo ku wakhtigooda iyo cimrigooda khayrka uga faa'iidaysta wanaaggana sameeyana allah inaga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اختم الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنيران اللهم احينا على الإسلام ومتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر